ninkan oo u dhashay dalka Ciraaq ayaa muran badan ka dhaliyay baraha bulshada. Waxa uu ahaa makaanig baabuurta sameeya, laakiin waxa uu in muddo ah ku shaqaysan jiray inuu yahay dhakhtar caafimaad, isagoo sidaasi kaga shaqaysan jiray cisbitaallo waaweyn. Ma ahayn dhakhtar, sidoo kalena sooma baran, laakiin waxa uu damcay inuu ku shaqaysto maadaama lacaga fiican uu helo dhakhtarku. Waxa uu shaqadiisii kaga tegay mushaar yari awgeed, isagoo samaystay kaarar caafimaad isla markaana sheegtay inuu yahay dhakhtar weyn. Laakiin sida lagu ogaaday ayaa ka darneyd. Sheekadiisan ayaan kula wadaagi doonaa iyo muuqaalo kaamarada qarsoon ay duubtay isagoo shaqada dhakhtarnimo ku guda jira. Ninkani waxa uu u dhashay dalka Ciraaq, waxa uuna ku noolaa magaalada caasimadda ah ee Baghdad ee dalka Ciraaq. Halkaasi ayuu ka shaqaysan jiray isagoo ahaa makaanig baabuurta sameeya. Waxa uu joogi jiray garaash baabuurta lagu sameeyo oo uu ka shaqayn jiray. Waxa uu dareemay in shaqadaasi ay tahay mid dhib badan oo rafaad leh. Sidoo kale waxa uu aad uga xumaa lacagaha yar ee uu ka qaadan jiray makaaniga. Rafaadka iyo duruufta waxa kaga darneed mushaar yarida. Mar dambe waxa uu ku fikiray bal inuu shaqatan ka roon raadiyo, laakiin dhibaatada uu wajahayay waxay ahayd in uusan wax baran yaraantiisii. Ugu dambeyn waa kan qaatay inuu noqdo dhakhtar isagoo aan baran caafimaadka. Waxa uu samaystay kaarar caafimaad iyo shahaadooyin been abuur ah, iyo maalmo oo uu tababar qaatay si uu wax uga fahmo caafimaadka. Waxa uu helay fursad shaqo oo uu ka faa'iidaystay. Cisbitaallo waaweyn oo ku yaala caasimadda Baghdad ayuu ka shaqo bilaabay isagoo sheegtay inuu yahay dhakhtar weyn oo khibrad sare leh. Waxa uu ku guulaystay inuu ka shaqo bilaabo mid ka mid ah cisbitaallada ugu waaweyn ee ku yaala dalka Ciraaq. Inkastoo aan la faahfaahin sida uu uga shaqaynayay cisbitaalka, waxaa la ogaaday sheekada makaanigii hore ee hadda dhakhtarka noqday. Muuqaalo kaamirada qarsoon ay duubtay ayaa muujinayay qaabka loo qabtay dhakhtarka oo ay sugayaan markaasi bukaanno xanuuno kala duwan la ildaran oo albaabka u taagnaa. Sida uu muuqaalkani muujinayo, dhakhtarku waxa uu ahaa mid ku labisan dharka ay xirtaan dhakhaatiirta iyo qalabka wisitada oo qoorta u suran. Wax xabsi ah kama qabin in la ogaan doono. Si kadis ahse waxa uga soo horbaxay agaasimaha cisbitaalka. Waxa uu dhakhtarkii weydiiyey aqoonsigiisa iyo cidda taqaan. Halkii ayaa muran ka dhashay, waxaana la isweydiiyey dhakhtarkan ilaa ugu dambeyn la ogaaday xaqiiqada dhabta ah ee makaanikii dhakhtarka isku beddelay. Booliska magaalada Baghdad ayaa ninkii xiray, waxaana saacado kadib wasaaradda caafimaadku ay ku dhawaaqday inay gacanta ku dhigtay nin ka shaqayn jiray samaynta baabuurta soo ciladowday oo sheegtay inuu dhakhtar yahay. Sheekadan ayaa muran aad uga dhalisay baraha bulshada. Dalkeena Soomaaliya waa meesha ugu badan ee dhakhaatiir ajnabi ah oo aan dalka u dhalan waxna ku baran ay ka shaqeeyaan, sida Siiriyaan, Suudaanees, Turki iyo Masaari. Ma laga yaabaa inay ku jiraan kuwa aan xirfad buuxda u lahayn dhakhtarnimada? Aragtidaada hoos nagula wadaag, muuqaalkana sii faafi si dad badan uu gaaro. Haddii aad nagu cusub tahayna ku soo bir boggeena Xuseen Xaaji Xasan. mahadsanid.